saa ka soo jeedinayaa hadal yaroo kooban hadalkaas yaree kooban waxa weeye dalka Somaliland hoos eegdiisii aad bay u liidataa awal baynagoo dawlad aan ictiraaf haysan aynu ahayn laakiin berigii hore sidan weynu dhaani dalka waxa ka jira 3 gole saddexdii gole shaqadoodii oo dadkii ay meesha u fadhiyeen oo saaka liita abaarina ku dhacday go'aan maanta xaggii maciishada iyo xaggii dalka iyo wax dhinac kastoo la eego way ka liitaan ma shaqaynayaan xafiiska tagto nin wasiira ugu teekirmaysid waxaan leeyahay oo kale xildhibaanadii nin waliba hawdkiisu galay golaha yar intaa yar ee joogtada ah guursida ayuunba haddeer dalkii dhex ururdisa marka sida tan anigu waan la yaabay subax walba sixir barar baa sii kordhaya subaxii alla soo goobo dawladdu waa tii madaxweynuhu soo jeediyay waxba lagama qaban digreetu soo saaro istaana waxba lagama qaban haddana waxaan leeyahay war dalkii sida tan yaan lagu eegana dalkii waa la dayacay indha dheer loo yeesho aniga kulli intaasaan ku koobayaa hadalka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحبان وكرم. سحر برك واحد كم مسؤولة. مرة دي مدحوينه يدلك كل واقع سحر إنه ودكتاتك صاري إن دولار كذا أنت على قدكوا. نيك تبي ووسيرك محو هاي إن مدحتوني ده. dadku ha weydiyo sababtu uga jawaabi lahayd ilaa hadda war banka malacag baa la geeyay waxba lama geyn banku cidlu taagay wasiirka maaliyadda dalka haysta sixir bararkana waa ka kow tan Itoobiya waa ka kow ما قرأت وحاسو دل وكسو فتحين دلك marka inaga baa curyaameen dalkii xilbaanada dad soo doorteen baa tireen dadkan wasaaradda maaliyadda iyo dadkan sheegaysan oo tagteen oo kala hadashay intaas saxaafad soo hadii loo yeero waba si cararayaanba waxaad xukuumadii markaa ku baaqaysaa waxaan ugu baaqaynaa xukuumaddu dadkeeda dalkeeda ha u dibicsanaato waxna ha qabato